Chlamydia trachomatis waxay ka mid tahay cudurrada ugu horeeya ee lagu kala qaado dhanka iyo galmada. Waayahan dambe waxay ka mid noqotay cudurka ugu badan ee lagu kala qaado dhanka iyo galmada. Chlamydia waxay waxyeeleysaa cervix-ka ama minka afkiisa. Sidoo kale waxay kaloo waxyeeleysaa qaybta dambe ee dabada. Waxay kaloo waxyeeleynaysaa indhaha ama dhuunta. Chlamydia qofka markuu isku fiirsado waxay waxyeeleyn kartaa genital organs-ka ama xubnaha taranka ee ragga, gaar ahaan dhanka iyo shahwada marinkeeda, tubooyinka ay soo marto, testicularis-ka, xiniyaha qaybahooda kala duwan, xididaha xubinta taranka. Dhammaan asxaabta aan halkan ku saaxiibnay, inta nagu cusub iyo intii hore ee la socotay, waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka labaad intaan barnaamijka u guda gelin waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe ka saartaan. intii hore aad ay ugu mahadsiin inta nagu cusub inteedan naga hilmaamin saaxiibayaal subscribe ka saara kanaalka. maanta waxaan dul istaageynaa cudurka loo yaqaano Chlamydia. Chlamydia wuxuu ka mid yahay cudurrada ugu ballaaran ee dhanka iyo sariirta lagu kala qaado ama galmada. waayahan dambe wuxuu noqday cudurka ugu horeeya ee waxyeeleeya lamaanaha isqaba oo kaasoo lagu arko infection-ka ama qeybaha kala duwan ee infections-ka ee ku dhaca dhanka hoose. Chlamydia waxaa loo isugu gudbin karaa sexual intercourse. Partners-ka ama labada qof isqabta mid ka mid ah haddii cudurkii hore u siday ama infection-kii uu cudurku uu ku jiro jirkiisa, waxaa macquul ah in qofka kale uu gudbiyo. Microorganism-ka ee bacteria Chlamydia waxay si toos u raaci kartaa dhacaanka u gudbaya dhanka iyo qofka kale. markuu si toos qofka ugu gudbo cudurka waxa uu sameeyaa xil huuris in muddo aan qofka uusan dareemin wax calaamado ah ama waxyaabo lagu fahmi karo cudurka. cudurkan Chlamydia ee dhanka sariirta lagu kala qaado da'da ugu badan uu ku dhaco waxaa lagu sheegay inay u dhaxayso 20 ilaa 45 waana da'da dhalinyarada. qofka Chlamydia markay ku dhacdo in muddo ah jirkiisa ay ku jirto xil huuriska uu ka baxo wuxuu isku arkaa dhacaan ama qoyaan xubintiisa taranka soo fadhiisanaya. dhacaankaas midabkiisa wuxuu isugu jiraa yellow and green color, jaalo cagaar xigeenah inuu mararka qaarkood isku arko kaadida markuu dhameysto iyo asagoo caadi isaga fadhiyo inuu soo raaco xubintiisa taranka haddii ahaan lahayd gabar ama wiil. marxaladaas marka ay jirto hadii jeer qofka wuxuu u baahan yahay baaritaano badan inuu sameeyo, dabagal badan inuu sameeyo, inuusan isku fiirsanin. haddii marxaladahaas uu isku fiirsado qofka waxay noqonaysaa inay gaarsiiso xubnihii taranka qaybihii kala gudubanaay, qofkana uu develop gareeyo ama uu ku dhaco infertility, bacrimin xumo ama in mandhelisnimo uu noqdo. dhanka iraga waxaa ka mid ah inuu qofka isku arko in kaadidii ay gubto, kaadida mararka qaarkood ee aada u xanuujinayso, sidoo kale kaadida inay ka fakato. sidoo kale wuxuu kaloo isku arkaa marka uu kaadida dhameeyo dhacaan dhanka ibta xubinta taranka soo fadhiisanayo, dhacaankaas ama qoyaankaas oo midabkiisu uu yahay jaalo cagaar xigeenah. ragga sidoo kale waxay isku arkaan in xiniyaha labada xiniyood mid ka mid ah ama labadooda inay soo bararaan, dikaanna uu muujiyo. sidoo kale ragga waxay isku arkaan dhabar xanuun badan iyo qaska ama kaadi haystu inay aada u xanuunto. dhanka iyo dumarka markaan ka hadalno midabka ama qoyaanka ka imaanayo waa isku mid dhanka iyo ragga markii laga fiiriyo. dabcan waxay isku arkaan qoyaan noociisu uu yahay jaalo cagaar xigeen. incubation period-ka ama xil huuriska cudurka marka uu dhammaado in muddana ay kasoo wareegto, gabadha ama hooyadu waxay isku arki kartaa in kaadida ay gubto, kaadidu ay ka fakato. dabcan kaadida markay dhammaato ama mararka kale waqtiga caadiga ay ku jirto in qoyaan ama dhacaan midabkiisu uu yahay jaalo cagaar xigeenah inuu ka imaado. waxaana usii dheer in ay la socoto dhabar xanuun aada u badan. sidoo kale waxaa kaloo u dheer dhanka iyo kaadi haysta ama qaska inuu aada u xanuuno mar walbo, taasoo sababaysa in kaadida ay gubto ee ka fakato. haweenka markaan ka hadalno saameyn aada u xoog badan ayuu kusii sameynaa dhanka iyo dhalmadooda ama dhashooda. waxa ugu horeeyo uu aada u waxyeeleynayo waxaa ka mid ah wareega afka, sidoo kale inuu ka waxyeeleeyo marinka ugxaanta ama fallopian tube.
inay noqoto meesha caabuq inuu ku daaho, infection side inay noqoto, tubooyinkana ay xirmaan kuna sameysmaan wax loo yaqaano scarring, inay isku dhagaan, aysan soo mari karin ugxaantii, aysan ku milmi karin dhanka ishaabada. mar haddii uu marxaladahaas gaaro waxay noqonaysaa inuu ku dhaco pelvic inflammation disease, dhammaan sida guud ahaan ee xubnaha taranka inuu cudurku u saameeyo, in haweenkana ay noqdaan dhalmadooda inay aada u yaraato. inta cudurku aysan saameyntiisa aada u ballaaranin, waa muhiim inaad dhakhtar la tashatid, inaad iska daaweysaan labada qof isqabto in si guud ahaan isku daaweeyaan. dabcan daawada way fududahay marka ugu horeyso, laakiin marka aada qofka iskugu fiirsado cudurka waxaa la dhici karta in daawadiisa ay daba dheeraato, marxaladaha infertility ama dhalmo la-aantana uu sababo waqti badanna qofka laga daaweynayo. waxaa loo qaadan karaa ama loo isticmaalaa daawooyinka antibacterial, gaar ahaan urinary systemka, kuwa aadka ugu fiican, ama genital organiska marka ay ku sameysmaan bakteriyada ama caabuq uu ka dhasho ee cudurada laiskugu galmoodo. waxaa ugu horeeyo groupka third generation ama cephalosporin. sidoo kale qofku wuxuu isticmaali karaa metronidazole ama doxycycline. intaadan daawada isticmaalin ama si gaara daawada aada u gadan, waa muhiim inaad dhakhtar u tagtaa si wacyigelin laguu sameeyo, lagaalana hadlo waxyeelada cudurka uu sameeyo. dabcan waxay qaadan kartaa in ku dhow 10 beri ama 12 beri in daawada aad qaadatid si ay u yaraato malaxdii ama infectionkii oo jirka ugu baaba'do. in qof uu iska daaweeyo qofka kale uusan qaadanin, dabcan waxay ka dhigan tahay in cudurkii uu soo laaban karo, labadii qof uu toos saameyn karo. waa muhiim in si guud ahaan labadiina aad u qaadataan dadka isqabo, inta la qaadanayana in ku dhow 2 usbuucaan la isku galmoonin. aada iyo aad kaga mahad celinaa dhageysiga la socodka kilibiska aan soo geliyay anigoo ah Dr. Maxamed. waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin dhammaantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.